kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamij ku saabsan sheekooyinka fanka iyo qisooyinka fanaaniinta Soomaaliyeed. qisada maanta aan idiin wadana waa qiso kale oo aad iyo aad u xanuun badan. qisadani waxa ay dhacday sanadihii 1991 oo dowladii kacaankii ay gabig dhacleynaysay oo meesha ay ka bixisay jabhadihiina ee magaalada ay kaabiga ku hayaan kuna soo siqayaan. qisada xanuunka badan leh oo dad badan saameyn doonto saameysayna waxa ay ku dhacday abwaan Soomaaliyeed oo ka mid ahaa abwaanadii Soomaaliyeed kuwii ugu caansanaa ugu suugaan wanaagsanaa kana mid ahaa ciidamada. abwaanka weyn jannada Allaha geeyay Cabdi Bashiir Indhabuur ayaa isagu waxa uu ahaa abwaanada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan. abwaan Cabdi Bashiir ayaa isagu waxa uu ahaa korneel ka mid ah ciidanka booliiska Soomaaliyeed, sidoo kalena waxa uu ahaa gudoomiyaha kooxdii Heegan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed. abwaankoodana waa uu ahaa sidoo kalena laxamada ugu badan ee ay qaadaan kooxda Heegan jacayl iyo wadaniba isaga ayaa sameeyay. abwaanka suugaantiisu waxa ay ahayd mid hab farshaxan iyo weliba si maldahan oo uu ku salaysan yahay suugaanta Soomaaliyeed, falag iyo weliba masarbeeb iyo hadallo maldahan iyo weliba kuwa cadcad ayuu abwaanka suugaantiisa aad iyo aad ugu tacabirayay. abwaanka ayaa isagu bilowgii kacaankii la kowsaday. waxa uu yahay abwaan Cabdi Bashiir abwaanka ugu badan heesaha wadaniga Soomaaliyeed abwaankii sameeyay. kuwii kacaanka loo sameeyayna waxa uu ahaa abwaanka ugu badan ee heesaha kacaanka sameeyay. waxa uu ka qayb qaatay baritaarka welibana in la buunbuuniyo hirgelintii mabaadi'dii kacaanka ee hanti wadaaga ku dhisneed. abwaan Cabdi Bashiir dagaalkii 77 markii Itoobiya iyo Soomaaliya ay foosha isgeliyeen waxa uu ahaa abwaankii ugu badnaa ee sameeyay heesihii dhiirigelinta, abaabulka, dagaalgelinta iyo kuwii ahaa cadow la dagaalanka ee amxaarada la isaga dhicinayay. abwaankii ugu badnaa ee sameeyay. abwaanku waxa uu ahaa haliyey kacaankuna aad iyo aad ayuu u jeclaa. sidoo kale abwaanka waxa uu lahaa heese jaceyla oo aad iyo aad u badan. dabayaaqadii 80-meeyadii markii ay jabhadihii wadanka ku bilaabmeen dowladii kacaankii uu hogaaminayay Maxamed Siyaadna ay gabadhacleyn ay bilowday iyadoo aad iyo aad u daciiftay meeshana ay kasii bixisay. abwaanka waxa uu isbedel ku sameeyay suugaantiisa iyo weliba shakhsiyadiisa isagoo gaabsaday. welibana abwaanka waxa uu isku dayay inuu suugaantiisa ku maldaho la dagaalanka kacaanka. haddaba markii ay dowladii kacaanka meesha ay kasii bixisay magaaladana ay kasii tegaysay ayaa abwaanka waxaa lagu dilay afaafka wadada weyn ee wadada airportka ama 21 October qofba siduu u yaqaano. abwaanka ayaa waxaa dilay ciidamo ku hayb ahaa madaxweynihii baxsadka ahaa xilligaasi magaaladana kasii huleelayay isagoo dhuumaaleysanaya ee Maxamed Siyaad. ciidamada ayaa abwaanka waxay u dileen ayaa la leeyahay si qabiili ah. weliba abwaanka oo isagu ka soo jeeda magaalada Gaalkacyo welibana isku hayb ay ahaayeen ninkii jabhadii USE hogaaminayay ee Generaal Ciidiid iyo abwaanka ayaa qoys hoose isku ahaa. welibana taa awgeed ayaa loo aaneynayaa ayaa la leeyahay dilka abwaanka. laakiin dad kale waxa ay u dhigaan si kale iyadoo ay ku tilmaamaan in amar ka soo baxay madaxweynihii xilligaasi sii baxsanayay ee Maxamed Siyaad in uu isagu ka dambeeyay amarkii lagu dilay abwaan Cabdi Bashiir isagoo yidhi afkii shalay waaniga iyo kacaanka inagu ammaanayay naguma cayn doono ayaa la leeyahay ayaa lagu dilay abwaanka oo ciidamo ka tirsanaa kacaankii firxadka ahaa ayaa dilay. si kastoo ay ahaataba tan dambe ma xoog badna ayay dad badan leeyihiin oo qisadaasi si hoose ula socday. laakiin si kastoo ay ahaataba abwaankii qiimaha badnaa ayaa si fudud waxa
u dilay ciidamadii firxadka ahaa ee baxsanayay oo ku heeb ahaa madaxweynihii xilligaasi isna dhuumaalaysanayay magaaladana kasii holeelayay ee Maxamed Siyaad. hadba sideeta waa qiso aad u xanuun badan. adigu sideed u maqashay qisadaasi, sideyna kuu saamaysay in abwaan sidaa u qiimo badan maalin cad hadh lagu dilo wadada Fintuuno isagoo magaaladiisii jooga? dib dambe intaanu kulmi doono, nabadgelyo.